waxay ka mid tahay 19 gabdhood iyo 5 wiil يعني 25 arday oo quraanka kariimka ka dhameeyay dugsiga Daarul Quraan ee magaalada Muqdisho iyada iyo koox saaxiibadeeda ah ayaa ku soo bandhigay munaasabad Muqdisho lagu qabtay bandhig aad u qurxoon خيركم من تعلم القرآن وعلمه رواه البخاري حديث كان عثمان بن عفان الله كرم نقله عثمان بن عفان وحوري ورسول كان وحوري وذكر حول قلب منك قرآن كبرت ذكر برا إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور والعصر إذا يقول عصر كقدرت إن الإنسان كل في قصر قصارى كسوين إلا الذين كانوا معنا يعملوا رمي وعملوا عمل ثلاث صالحات أعماشا ونكسن وتواصوا يسد الدارمين وتواصوا يسد الدارمين بالحق حق يسد الدارمين وتواصوا يسد الدارمين بالصبر الزور يسد الدارمين سؤال ما هي ثمرة علم التجويد جواب سيغلس عن القدر في كتاب الله عز وجل قرآن كان أقريا قبلة ودها قفكي إيقو قلدما خادل كانوا قيليا قندومي قبتا قيام الليل نكعة خويقان سديوة قلبي وكدقا qaar ka mid ah mashaayikhda magaalada macallimiin iyo waalidiinta ardayda dhalay oo munaasabadan soo xaadiray ayaa kalimaad dardaarana jeediyay marka waalidiinta waxaan ka codsanayaa siiba hooyooyinka oo guriga u badan aabbahaana kama reebin kulley waxaan ka codsanayaa in ardayda u soobiyaan masraxa gaar ah oo guriga ka tirsan ay ku bartaan maadada qur-aanka kariimka ah qur-aanku isagaa culuum leh tajwiidka hadda naloo sheegaa ka bilow macaanidiisii la bartay buxuji milyan jeer rabbi subxaanahu wa tacaala ha idinku anfaco qur-aankii aada barateen midda labaadna waxaan u hambalyeynayaa macallinkii intaa kusoo tiiriyay tacabeelay macalin yaasir xuseen maalinta qiyaama lagu weydiin maayo afar ku dhufo iyo laba ku dhufo lagu weydiin maayo cunugu waxaa lagu leeyahay ma bartay qur-aankii ma bartay diintii ma bartaa lagu leeyahay macallimiintii juhdigaas faraha badan soo bixisay iyo waalidiintii garab taagneed intii macallimiintaas ardada qur-aan ka baraayeen allah subxaanahu wa tacaala waxaan ku barayaa inuu adduunyadana ku ciseeyo aakhiradana makaan amkinada ugu sareyso jannada allah subxaanahu wa tacaala uu dejiyo abu daawuudka sharxiisa ayaa ma garanaysaa wuxuu yidhi qur-aanka aayadihiisa iyo jannada darajaadkeedu way isla egyihiin marka qofka qur-aanka xaafidka ah qof ka darajo sarreeya maba jiraba maalinta qiyaamada maamulaha madrasada macalin yaasir iyo macallimiinta kale oo la shaqaysa waxaan leenahay jazaahum allahu khayra jazaa barashada qur-aanka kariimka waa khidaamun liljamiic dadka waaweyn dadka yaryar kulli dhammaan arrin ku jeeda waay barashadu maaha in ardada keliya laga wado ardada macnaha xilligii barashada iyo xifdiga ku fiicneeday joogtaa waay macallin yaasir oo ah macallinkii baray 25 arday 114 qur-aanka ayaa u mahad celiyey kasoo qaybgalayaasha munaasabadan heerkan maanta ardayda ay soo gaareen xafladan aad u qiimaha leh waxaa u dhawar adeegay oo soo saaray oo habeenii maalin juhdi ku bixiyey waqtigooda in badan geliyey waa waalidiinta hooyo aabo ayagana mahad gooni ayay mudan yihiin mar walibana insha allah waan idin ducaynaynaa saad maanta ardayda iyo marti sharafkaan ugu fariiseen rabbul caalamiin ilaah idinkaga farxiyo insha allah waxaan kaloo tahniyad gooni ah
iyo hambalyo gooniya u dirayaa ardayda khariijiinta iyo khariijaadka ah gabdhaha iyo wiilasha qalin badashtay kitaabka ilaahay bartay ayagana mahad gooni ayay leeyihiin ardaydii dhammaystay qur-aanka kariimka ayaa loogu yeeray siinta shahaadooyin iyo kutubo qur'aan oo abaalmarin ah afnaan xuseen isdiyaari waalidiinta carruurta dhalay qaybtood ayaa macallin yaasir guddoonsiiyey hadiyado waxaana macallinka qudhiisa iyo waalidiinta ay hadiyado guddoonsiiyeen carruurtii dhammaysatay xifdinta koowaad ee qur-aanka